yaa dilay Banaadir. Assalaamu calaykum, ku soo dhowaada Tusaale Janaal. Maanta waxaa idiin soo gudbinayaa dilkii qorshaysnaa ee ra'iisul wasaarihii Bakistaan. Banaadir waxay dhalatay Juun 21, 1953. Waxay ku dhalatay Karachi, dalka Bakistaan. Waxay dhimatay Diseembar 27, 2007. Banaadir waa siyaasi Bakistaani ah. Waxay 2 jeer noqotay ra'iisul wasaaraha dalka Bakistaan. Adigoo gabar ah inaad waddan Islaam ah hogaamiso ma ahan wax fudud, weliba sida dal Bakistaan oo kale oo xasaasi ah. Banaadir waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare ka noqota dalkaas, weliba 2 jeer ayaa kursigaas loo doortay. Doorashadii koowaad 1988 ilaa 1990 iyo markii labaad oo ahayd 1993 ilaa 1996. Banaadir waxa ay ahayd shakhsiyad markasta khilaaf badani ku gidaarman yahay, nacayb u joog ah, dhaliilo badanna la kulanta. Waxa ay markasta bartilmaameed u ahayd kooxaha xarakooyinka Islaamiga ah. Dilkii ay ka badbaaday Banaadir 18 Oktoobar 2007 waa 2 bilood uun ka hor goorta si rasmi ah loo khaarijin doono. Banaadir waxay ku soo noqotay Bakistaan kadib 8 sano oo nafteeda kala carartay dalka Bakistaan. Hadda waxay ka tirsan tahay xisbiga mucaaradka ah. 12 habeenimo ayay ahayd. Waxaa isdaba joogay baabuuro badan iyo mootooyin oo iyada lagu galbinayo. Waddada hareeraheedna waxaa tubnaa taageerayaasheeda oo la dhacsanaa iyada. Si lama filaan ah ayaa 2 qarax u dhaceen. 3 baabuur oo booliiska saarnaa ayuu qaraxu burburiyey. Xitaa baabuurkeedii wuu burburay, haddana nasiib wanaag waxba ma aysan gaadhin. Banaadir waxaa la sheegay inay gaariga gadaashiisa dambe jiiftay. Iyadu way badbaaday, balse habeenkaa waxaa qaraxaas ku naf waayay 180 qof, waxaana ku dhaawacmay 500 oo qof. Maalintii la dilay Banaadir bishii Diseembar 27, 2007, isu soo bax ballaadhan ayaa ka socday bartamaha magaalada Rawalpindi. Hogaamiyaha xisbiga BBP oo ahayd Banaadir ayaa loo dabaaldegayay. Banaadir waxa ay saarneed baabuur nooca aan rasaas ku karin, waxa uuna ahaa nooca dusha liska furo. Banaadir baabuurkii ayay kor uga soo baxday si ay taageerayaasheeda u salaanto. Nin aan ka fogeyn oo qiyaastii u jiray 2 ilaa 3 mitir ayaa rasaas ku furay. Banaadir degdeg ayay baabuurkii hoos ugu degtay, balse isla markiiba waxaa xigay qarax weyn oo dhulka gariiriyey. Qas iyo qalalaase ayay xaaladii isku beddeshay. Banaadir oo dhaawac ah ayaa isbitaalkii loola cararay, balse nasiib darro nafbala lama gaadhin. Banaadir waa ay dhimatay. Qaraxaas waxaa ku naf waayay 24 ruux oo ay iyadu ku jirtay. Inkastoo la isku khilaafsan yahay sababta geerideeda, haddana ugu dambeyntii waxaa la xaqiijiyey inay u dhimatay dhaawac ka soo gaadhay madaxeeda oo dhinac burburay, kaasoo uu sababay qaraxii, balse ay ka badbaaday rasaastii hore. Dhimashadii ra'iisul wasaaraha waxay Bakistaan ka dhalisay isku soo baxyo rabshado wata, waxaana ayaamihii xigtay ku dhintay 47 qof. Hanti badan ayaana la burburiyey, meelo badanna waa la gubay. Yaa dilay Banaadir. Inkastoo markii hore lagu eeday Taliban, ugu dambeyntii waxaa dilkeeda sheegtay Al-Qaacida. Taliyihii wakhtigaas ee Al-Qaacida waxa uu yidhi hadal caan noqday oo ahaa, waxa aynu ka takhalusnay hantidii ugu qaalisneed ee Maraykanku lahaa. Qisadeena maanta halkaas ayay ku eg tahay. Haddii aad ka heshay fiidiyogan like saar, haddii aad nagu cusub tahayna subscribe noo saar. Mahadsanid.